xaaladeyda maalinba maalinta ka dambeeyay way soo hagaagaysaa muddo bila ayaa hadda laga joogaa waqtigii dhaawacani soo gaaray waxay ahayd 16 January ayaan dhaawacmay bil buuxda ayaa laga joogaa marka alxamdulillah dhaqaatiir ay u dadaalay waxaan ka jabay bawdada midig iyo gacanta sidoo kale waxaa jiray firiro jirkayga galay firiradiina waa la iga saaray jabniinkiina waa la kabay alxamdulillah waa soo kabsanaya laakiin waa qiyaasi kartaa maaragtay bawdo jabtay waqtiga ay u baahan tahay marka hadda waxaan sameeyaa physiotherapy waxaan isku dayaa inaan socdo alxamdulillah xaaladeyda maalinta ka dambeeyay sii hagaagaysaa waa markii ugu horreysay ee aad waraysi bixiso tan iyo markii aad dhaawacantay bartamihii bishii hore maalintaas dareenkaagu saa maxaad dareemaysa markii wax kugu dhaceen wallaahi horta caadiyan aroor walba shaqadeydan aadi jiray markii aan gurigayga ama aqalkayga ka soo baxaayay alxamdulillah qof waxaan ahaa faraxsan oo shaqadiisa u socdo oo maaragtay waxba ay ka hadlaysnayn laakiin sakano gudahooda ayaa xaaladii maaragtay isbedeshay waxaa ila socday wiilaan adeer u ahay oo gaariga darawalka ahaa isagaa igu yidhi soo deg waa baxaynaa markaan soo degay aan rabay gaarigii inaan raaco qaybta shirkaan soo istaagay markaasaan alaabtii iyo laptopkii waxaan watay markaan saartay ayaa waxaan arkay xarig iga furan kabta marka xariggii baan ku foorarsaday meesha cagasaarta gaariga ayaan maaragtay rabay inaan saartay ayaan rabay inaan xirto anigoo xiranaya waxaan arkay qof soo maqiiqay oo meel aan fogeynba ii jiro soo cararaya wax aan sameeyey ma garanayo waxaan xusuustaa inaan albaabka gaariga qaybtiisa dambe intaan aan ku riixay oo aan jug ku siiyey laakiin wax lagu tilmaami karo ma jirto xoog iyo xeelad qofka looga baxsan karay ma jirin waxaan dhihi karaa awood Allah ayaa u badbaadisay marka wax kale aan ku tilmaami karo ma jirto sababtoo marka la fiiriyo xajmiga oo qaraxas la eka iyo sidoo baabuurka u baabi'iyay dhulka baaxadda leh maaragtay qoday iyo aniga distanceigaas yar u jira sidoo Ilaahay iga badbaadiyay wax oo mucjiso oo qof Allah u badbaadinayo bisa lagu tilmaami karaa laakiin waxay ahayd maaragtay xaalad aad u xanuun badan markii waxay dhaceen dhulkan ku dhacay daqiiq madow iyo uura ayaa maaragtay afka ka buuxinaya indhihii waa maaragtay waxba kama arkaysid marka hore waxaan bas lahaa ugu yaraan qayb ka mid ah jirkaaga ayaa maqan laakiin markii aan dhul ku dhacay ayaan gacanta maaragtay isku hubiyey oo korka fiiriyey alxamdulillah waxaan arkay jirkayga oo dhan inuu taam yahay markii aan isku dayay inaan istaago oo aan rabo inaan isinjiyo ayaan ogaaday inaan istaagi karin oo culays weyn isaaran yahay kadibna waan iska seexday dad badan ayaa igu soo xoomay qof waa dhintay dhahayo meeshii anigu iska joogaa waxaan arkay nin muuse la yiraahdo maaragtay aan saaxiib ahayn muusihii ayaa maaragtay amray in maaragtay si degdeg ah la ii soo qaado alxamdulillah isbitaalka digferal ay keenay dhaqaatiirtuna waxay ii sameeyeen gurmad iyo gargaar degdeg ah sababtoo xilligaas xitaa neefta iyo manaqaska igu xirnaa oo oksijiinteeda xataa aad u hooseysay ma jirtaa inaad xoogaa ay ku gashay armaa lagu dhamaystiraa oo kale ma ku gashay xaaladaas aan hor joogay oo dadku ay lahaayeen waa dhintay waa nool yahay hub xitaa gaariga aan ku jirno saarnaa marka xataa cabsida ugu weyn waxay islahayd iska dhaaf hub kaloo banaanka ka yimaada kan adiga aad meesha saarnaaye wiilka uu watay ama maaragtay dhibaato lagu geystaa maskaxdu si daran u fakaraysay laakiin alxamdulillah waxaa muhiim ahayd inaan dareen qabay inaan qof walba kala garanayay inaan maskaxdaydu ay caadi ahayd ilaa iyo intii laysoo qaaday ilaa intii isbitaalka la keenay mar walba waxaan ahaa qof xaaladda iyo waxa ku hareeraysan iyo waxa uu la socdo aad ula socday marka waa garan kartaa inta badan waxyaabaha dhaca marka xitaa wadnaha inta minidkiiba uu garaaci karo iyo culayska ku saaran waa fahmi kartaa weliba mar ay neefta kugu xiran tahay waa markii shanaad ee aad qarax ka badbaado ma ku tala jirtaa inaad ku noolaato muqdisho mar kale wallahi maxamed horta aniga Soomaaliyan ahay dhul kalena ma qabo dhulkaygu waa Soomaali marka haddaan ka fikirayo ano intaan ka dhalin yar oo da'deedu intaan ay ka yar tahay yaa waxaan tagay caasimado waaweyn oo adduunka ka mid ah qaarkood aan ka shaqeeyay ilaa 15 dal caasimadahooda oo Yurub ayaan tagay weligayna kuma fakarin inaan isdhiibo ama aan maaragtay ku noolaado mar walba waxaa muhiim ii ahaa inaan dalkayga joogo weliba xaalad adag ayadoo jirtaan ka soo shaqeeyay Muqdisho waad ogtahay 2006 aan la awoodin dadka qaarkiis in xitaa ambulance lagu qaado oo dadka maaragtay gaari gacan bakaara lagu qaadi jiray oo 20 maanta markay dhimato meeshii dadku ay u cararaan iyadoo la qaadayo hadal madfac kale iska soo dhacayay xaaladahaas aan ku shaqeyn jiray marka maskaxdaydu kuma soo dhicin inaan meel kale aad haddana kuma fakarayo